kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo in kaga hadli doono afar qodob oo sabab u ah burburka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ay maanta ku jirto. qodobka koowaad ayaa ah qaadashada taladii gumeystaha 1960kii Soomaaliya markay xornimada qaadatay oo ay ka xoroobeen gumeystihii reer Yurub yaa gumeystaa intuuna ciidda Soomaaliya ka tagin yaa dadka Soomaaliyeed wuxuu ku qanciyay oo kula taliyay in ay qaataan xeerarkii iyo qawaaniintii uu dalka ku maamuli jiray barigu isaga uu xukumayay. iyagana wuxuu ku yiri xeerarka qaata oo hore u socda oo isku maamula sida ayuu ku yiri. ummadda Soomaaliyeed yaa waxay noqotay arrinka dhibaatadii ugu horeysay iyo mashaakilka maanta ummadda haysta halka ayuu ka soo bilowday. iyagoo iloobay inay yihiin ummad muslim ah oo 100% muslimiin ah, ilaahayna uu soo dejiyay kitaab quraan ah ka oo loogu talagalay inay isku maamulaan oo ah dastuur rabbaani ah. hase yeeshee waa ay Soomaalida hareer mareenta ayada ah oo waxa ay qaateen qawaaniinta ayada ah oo in badan oo kamid ah diinta islaamka si toos ah kaga hor imanaya. gumeystaha oo sheeda sare arrinka isaga ka daawanay oo kor kala socda Soomaalida iyo qaabka xeerarkiisa ugu dhaqmayaan oo isla markaana uu leeyahay aniga idin garab taagan oo hore u socda. taa waxayna dhaxashiisay dhibaatada iyo burburka iyo mashaakilka ilaa maanta ummadeena Soomaaliyeed ee la dhibaatoonayaan. marka taa ayaa waxay ka dhigan tahay inuu yahay qodobka koowaad ee sababay burburka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ilaa maanta inuu ku jirno inay sabab u tahay qaadashada xeerarka ay qawaaniinta gumeystaha uu ina siiyay iyo ka tegitaanka kitaabka Ilaahay ee Quraanka Kariimka ah. haddaba dhageystaha qaaliga ah waxa sidoo kale jiray bariga sheeko yar oo dhex martay wiil iyo aabihii. aabbaha wuxuu ku jiray baarlamaankii barigii 60kii jiray ee sharci dejiyaasha xeerarka u dejinaya dalka. marka aabbaha wiilku wuxuu jiray aabbo waxaan bariyaan ku mashquulsanahay sharciye ayaan dejinaynaa. markaas wuxuu ku yiri wiilkii aabbo waa maxay sharciga la dejinayo soo kitaabka Ilaahay Quraan Kariimka soo ma yaalo oo sharciga Allah ah soo isaga maal dalka lagu maamulo maxaan kaga baahanahay in wax la sameeyo oo la qorqoray maxaan kaga baahanahay. markaas uu aabbo wuxuu ku jawaabay wiilkaygiyo ka aad ka hadlaysaa kitaabka yaani waa sharcigi aakhiro waa ka isaga ah inagu waxaynu sameeynaa kii adduunyada. marka u fiirso fikirka foosho xun mar si toos ah kaga hor imanaya diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed waxa ayna dhaxashiyay waa gumeystaha waa taladii gumeystaha. hadalada inuu qof Soomaali uu ku hadlo kitaabka Ilaahay uu ku tilmaamo inuu adduunyada shaqo ku lahayn taa ayada waa fikirkii gumeystaha iyo sidii uu rabay inaynu noqono ilaa maantana dhibaatada ayaynu ku dhex noolnahay. haddaba dhageystayaasha qaaliga ah ka tegitaanka kitaabka Ilaahay Quraanka Kariimka ah iyo qaadashada talada gumeystaha waa qodobka koowaad ee Soomaalida u horseeday dhibaatada ay maanta ku jirto. qodobkii koowaad ee barnaamijkeenana halka haynoo joogo. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi